sheeko cabsi leh oo maamo Soomaaliyeed ku dhacday oo xabsi ugu jirto oo la dil toogasho lagu xukumo aani sheegaya videogan walaashaada hooyadaada aabaha walaalkaaga saaxiibka u dir meel dheer soo u gaaray dad badan uga faa'iideystaan waliba hadaa tahay qof markiis ugu horeeyay safraayo oo elborg si fiican kala aqoonin zaid ku anfaca videogan safka gasho markaas safraysid oo ku anfacaya hada xataa wiliga aan safrin caadi waaye hadaa rabtiin sheekooyinka camalna waan isoo badanaa isoo qora maama ay hore safray Soomaaliga safraysa wadan kale oo safraysa hada wadan kale mini sheegay marka alaab badan may wadanin alaabta loo dhiibay xataa wax yariso ahaa like wax yariso halkii la camal dhan ahayd waxa lagu dhahay nuuqaad qofa xagga joogo qofkaas nuugay hay dhahay ayadii markay Soomaaliga ka tagto wax dhibaato dhan kuma dhicin laakiin wadanka u socotay markay saas u gashay waxa dhacday in la baaro waxyaalo oo wadanka loo ogoleen ku jireen waxay leeyahay ayada loo soo dhiibay waxa ayada wadata ma ahan wixii loo soo dhiibo ahaa waxaala ku jireen marka wadankaasna lagama ogolo waxyaalaas in hadda inta ka sheegay maraway wadanka iyo waxyaalaasba laakiin iska ilaali qof wuxuu ku dhiibaha qaadin maamada waxa la dhahay xabsi la galiyay alaabta inta keentay alaabtan qof ay soo dhiibtay qofka yaa waay dadka kale xataa information kooda ay ka maysan siin waxay sameeyeen ayada lambarkeeda ka qaateen waxay dhahay marka xagga tagtid anaka ku soo wacayno qofkan uu geynaysi lambarka anaka markaas ku soo direyno qofka u soo dhiibay xataa miiciisa ma taqaan lambarkiisa ma taqaano soo igi xataa ma garan karto qof markaas is aragteen waay marka waxa lagu dhahay waxaan adaa wadataa lagu dhahay qof ma taqaanid wax ma sameeynin kartid cadeen xataa ma keen kartid lagu dhahay marka maamada dil toogasho lagu xukumay hada sheekadeedu wali waa socotaa